hay-adda Najat Charity oo kaashanaysa Xikma Charity Association ayaa deegaanka cagaaran ee gobolka Mudug waxay ka hirgelisay ceel biyood kaas oo mitirkiisu gaarayo ilaa 200 mitir. Deegaankan cagaaran oo kamid ah deegaanada ay abaaruhu saameeyeen gaar ahaan waliba abaarihii kala duwanaa ee dalka soo maray waxaa ku nool ilaa 9,000 oo qoys oo u badan dayar aan haysan meel kale oo ay ka helaan biyaha. hay-adda Najat Charity oo kaashanaysa Xikma Charity Association ayaa deegaankaasi oo ay booqatay waxay ka hirgeliyeen ama ka bilaabeen hirgelinta ceel biyood ay ka faa'iideysan doonaan ilaa 10,000 oo qoys oo ku nool deegaankaasi iyo waliba deegaanada kale ee ku teedsan oo hoostaga oo u badan dadkaasi kuwa reer miyiga. ugu horeyn madaxa hay-adda Xikma Charity Association Cajiib Sheekh Cabdiraxmaan ayaa halkaasi ka hadlay waxa uuna ka hadlay muhiimadda ceelkan uu u leeyahay dadka deegaanka iyo waliba deegaanada hoostaga. waxaan maanta joognaa degmada cagaaran ee gobolka Mudug Puntland Soomaaliya jamciyat Najat al-Khayriya iyo jamciyat al-Xikma waxay halkan maanta iyo shalayba ka daahfureen ceel biyood mitirkiisu dhan yahay 200 oo mitir. magaalada waxay kamid tahay magaalooyinkii abaaruhu ay saameeyeen guud ahaan wadanka Soomaaliya abaartii ku dhufatay dhowrkii sano u dambeeyay. magaaladan sida loo sheegay waxa ku nool in ka badan 9,000 oo qoys ayaa ku nool magaaladan. sidoo kale deegaanada ku xiran waxa jooga xayoolo fara badan. ceelkan marka waxa ka faa'iideysan doona dadka cadadkooda intaas leeyahay iyo xoolaha ku xiran iyo deegaamada yar yar ee u dhow ayaa ka faa'iideysan doona. waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa subxaanahu wa ta'ala inuu ajir ka siiyo jamciyadda Najat al-Khayriya iyo dawladda Kuwait iyo shacabka Kuwait intaba waan u mahad celinaynaa. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka oo u mahad celiyay hay'adahan iska kaashanaya hirgelinta ceelkan noo soo kordhay oo aan uga mahad celinaynaa cidda fulinaysa oo ah al-Xikma qolada maalgelinaysaana ay tahay al-Najat iyo dawladda Kuwait oo loogu talagalay mashruucyadii loogu talagalay dawladda Soomaaliya gaar ahaan Puntland ay ugu deeqday abaaraha wadanka Soomaaliya saameeyay oo ay uga jawaabayaan inay ceelal ka qodaan badan deegaamada Puntland ama Soomaaliya. ilaahay baa mahad iskale waa u mahad celinaynaa dawladda Kuwait iyo Najat iyo al-Xikma oo fulinaysa mashruuca. waxay noo keenaan waddan reer cagaaran fiig aad u wanaagsan oo weyn oo waxa weeye dhammaan shirkadii khayriga ahayd oo ilaahay ha barakeeyay al-Najat ay noogu deeqday deegaanka cagaaran gobolka Mudug ay fulinaysana al-Xikma aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. runtii waxaan oran karnaa hadii abaarihii dadka ka jawaabay kow ka yihiin deegaanka cagaaran ceel biyoodka waxaan dareensanahay xilli loo baahan yahay oo baahi u qabto bulshada reer cagaaran in uu matoorkan ku soo aadamay. waxaan leenahay ciddii gacan ku siisay iyo ciddii soo dhaweysay iyo ciddii soo qaban qaabisayba aad bay ugu mahadsan yihiin. reer cagaaranna mas'uuliyadooda iyo shaqadooda iyo hawshooda insha Allah si tafaftiran oo habaysan inay uga soo bixi doonaan insha Allah. Xikma Charity Association ayaa ah hay'ad wadani oo ka shaqeysa arrimaha samafalka waxaana lagu xasuustaa arrimaha abaaraha ee qayb weyn ka qaadatay sidii looga hortagi lahaa. ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin akoon oo kamid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees. Sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya. ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam. haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya Gobin From oo u taagan magaalada aad ka tagaysid.
taabo lacag bixinta sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh